la kulan Gitaaj Ali Raaw waa 12 jir waxaana lagu xushmeeyay inay noqotay qofka ugu koreeya cilmiga sayniska dadka yaryar markii ay ikhtiraacday tijaabo qiimo badan aan ku kacayn oo lagu dareemi karo biyaha haddii sunta lead ay ku jirto moobilka isticmaasha waxa uu leeyahay dhuumo ku shaqeeya carbon go'aanadana markiiba u gudbin kara qaybta bluetooth ma doonto inaad ka qayb qaadato ciyaaraha qaboobaha ee Olympiga laakiin aanad fursad u helin tanaa haddaba fursadaadii adigoon goobta joogin ayaa waxa aad samayn kartaa tijaabooyin sidii aad meesha joogto oo aad tartanka ka qayb galayso dhici doono sanadka inagu soo aadan qaboobaha ee lagu qabanayo Koonfur Korea oo aad dareemayso sida barafka loo dulmaro waxa ka mid ah loox lagu dulmaro barafka oo 3 dhinac laga arki karo waxa kaloo raaci kartaa dhuum bira oo ku soconaysa 130 kiiloomitir saacadii haddii ciyaaraha qaboobuhu aanay ku anfacayn bal waxaad eegtaa quusida dhinaca badda hadday taada noqoto waxaad raaci kartaa submarine badda hoosteeda quusa oo cusub oo Shiinuhu ay sameeyeen waxay ku magacaabeen Deep Sea Warrior waxa uu dhameeyay rogaalkii hore ee tijaabada 50 maalmood markii la geeyay badda koonfurta Shiinaha waxa uu qaadi karaa 28 quusaya waxa uu quusi karaa 4534 mitir laakiin weli waxba u hadhay UPA ayaa toddobaadkan ku jirtay bogagga hore ee wararka markan waxaa lagu eedeynayaa inay isticmaashay rag hore ugu shaqayn jiray laanta sirta ee CIA oo ay basaasayeen teknolojiga gaadhi iswada iyo iyada oo shaaca laga qaaday inay si khalada warar uga xadeen 750 milyan wararkii gaarka u ahaa